وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرج منهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إلهي سبحانه وتعالى هنو هدي القرآن الكريم أن أقرني. إلهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنه إلهي سبحانه وتعالى maalinta aakhira kuwii qur-aankooda shafeeca qaaday inuu ilaahay naga dhigo. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa intii dhimatay inuu ilaahay u naxariisto. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inta xanuunsan oo dunida maanta dusheeda xanuun la jiifta inuu ilaahay caafimaad uu siiyo. waxaan leeyahay inta caafimaadka qabtana caafimaadka Allah u ziyaadiyo. waxaan idin leeyahay walaalayaal waa walaalkiina xasan maxamed roble. had iyo jeer waxaan jeclahay wanaaga hanaqata qur-aanka hanaqata macnaha shay qofka bini aadanka sida xurmada loo xurmeeyo loo sharfo insha Allah biidni Allah taala. waxaan usoo dhigay maadaama dad badan ay jiraan oo khayrka jecel ay jiraan ay jecel yihiin inay macnaha khayrka dhigtooda ay ku dhacdo. saas darteedan kilibkan usoo duubay marka ilaahayna ajir ha naga siiyo. ilaahay ajir ha iga siiyo. intii dhageystana ajri xasanaad Allah ka siiyo. waxa waa kulley haddii macnaha sii sheergareeya wanaaga sheergareeya xumaanta inta badan dadku way sheergareeyaan idinkana sii sheergareeya wanaaga sheergareeya in Ilaahay tacaala waxa inoo balana kitaabkaas inaan had iyo jeer kor aan u qaadno oo aan ilaawin adduunyada aan ku mashquulin ee kitaabkana aan xasuusnaano ya intaasna macnaha waxa ay dardaarna iga tahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkan munazalka ah ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyay inuu Ilaahayna qulubteena ku xafido. markii Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryeynaa had iyo jeer kitaabkan quraanka kariimka ah inuu Ilaahayna wada xafidsiyo saqiirkeena kabiirkeena inuu awlaadeena oo no baarin oo dhigo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryeynaa marka intii xumaan ah Ilaahay ha naga dhiqo intii wanaag ah Ilaahay ha na tuso. waxaan idin leeyahay waa walaalkiina xasan. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. سين شهر قرية بإذن الله تعالى.